xafladan oo ahayd mid si heersara loo soo agaasimay oo ay ku qalin jabinayeen 175 arday oo dhamaysatay dugsiyada sare ee Iftiin Primary and Secondary School ayaa waxa ay ka dhacday Hotel Sayid ee magaalada Muqdisho. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya, culamaa u diin, waalidiin iyo marti sharafta qaybaheeda kala duwan ayaa waxa ugu horeyn madasha hadal daafura ka jeediyay Cabdullaahi Cali Sheekh oo ah maamulaha iskuulka Iftiin qaybtiisa raadeelka ee magaalada Muqdisho. marka hore ilaahay subxaanahu wa ta'aala mahad iska leh Allah subxaanahu wa ta'aala bacdigii waxaan mahad celinayaa dhammaan marti sharafka qiimaha badan ee maanta xafladda nagala soo qayb gashay ee isugu jira waalidiinta, mas'uuliyiinta, macallimiinta, maamulayaasha iyo dhammaan martida kale iyo bahda saxaafadda iyo sidoo kale ardadeena qiimaha badan ee aad noogu qaaliga ah ee aad noogu weyn ee maanta aan u nahay u adeegayaal. alxamdulillaah waxaan rabaa inaan maanta si mahad gaar aan u jeediyo waalidiinta qiimaha badan ee ardadan muddada dheer ku soo halgamayay ee waqtiga dheer ee ardadan soo geliyay iyo wax dheefka qaaliga ah. waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo dhammaan qof kasta oo xafladan maanta qayb ka ah oo ka soo qayb gashay si guud si gaarana waxaan ugu mahad celinayaa oo aan ugu hambalyaynayaa ardadeena qiimaha badan. war badan ma jiro, aniga ujeedkaygu wuxuu ahaa inaan dadka sharafta iyo qiimaha naga mudan ee maanta xafladan nagala soo qayb galay inaan waqtigoodii qaaliga ahaa aan uga mahad celinno. sidoo kale waxaa goobta hadal la kooban ka jeediyey oo baraarujina xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya, xubno metelayay maamulka gobolka Banaadir oo iyaguna ardada ku baraarujiyay inay waxbarashadooda sii wataan isla markaasna ku booriyay in ay waxbarashadu tahay halka kaliya ee maanta wax lagu heli karo isla markaasna qofku noloshiisa uu ku badbaadin karo. macallimiinta, sharafta kale, waalidiinta aadka u qiimaha badan iyo ardayda qurux badan halka isku yimaaday. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta ka soo qayb galo xafladda qalin jabinta Iftiin Schools. run ahaan arday sidaan u qurux badan oo maamul iyo macallimiin karti iyo sharaf leh, waalidiin ay ku soo tiir iyo tacab geliyeen sidii halkan ku imaan lahaayeen maanta. run ahaan aad aan ugu faraxsanahay aniga ahaan. Iftiin Schools waa iskuul mudan in lagu daydo run ahaantii. waxaan nasiib ku leeyahay inaan u dooro carruurteyda iyo walaalahayba inay ka mid noqdaan Iftiin Schools. bismillah, alxamdulilah, salaatu wasalaamu calaa rasuulillah wa bacd. maamulka iskoolka Iftiin, bahda saxaafadda, ardayda wejiyada quruxda badan iyo waalidiinta isku soo xilqaamay in maanta ay arkaan ilmahoodii, carruurtoodii, ardaydoodii oo qalin jabinaysa inay maanta hor fadhiistaan ee la dabaaldegaan. dhammaantiin iyo intii kale oo ka soo qayb gashay waan idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh. salaan kadib farxadeennoo tahay waana maalin ka mid ah maalmaha maamulka degmada Howlwadaag ama annaga nagu qaali ah inaan aragno arday intaan la eg oo qalin jabinaysa oo maanta u fadhiisa xafladoodii, shahaadadoodii qaadanaysa inaan aragno maanta waxay noo tahay farxadee noo tahay. runtii aadaan idinkaga mahad celinaynaa dadaalka aad soo dadaasheen, waqtiga waxbarashada aad geliseen, culayska jira aan ognahay, duruufta aad wax ku soo barateen aan ognahay, iyo sida aad maxaa la yidhaahdaa dhiisha guntiga aad ugu xirateen idinka iyo waalidka intaba waa idinkaga mahad celinaynaa. mahad ha idinka gaarto. Dr. Xaashi oo ka mid ahaa waalidiinta ardadoodu maanta ay ku qalin bedelanayeen goobta ayaa waxa uu asna ka hadlay ahmiyadda ay leedahay waxbarashada iyo dadaalka in loo gala ay mudan tahay waxbarashadu, isagoona si kooban uga hadlay heerka uu asagu waxbarashada u soo maray.
anigoo ku hadlaya magaca waalidiinta dhalay dhalinyarada halkan fadhida maantay oo soo dhameysatay dugsiga sare waxaan ahay aabe koriyey oo dhalay laba ka mid ah ardada halkan fadhida oo ay dadaalka iyo juhdiga aanu ku soo wada bixinay aniga iyo iskuulka iftiin waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin dadaalka aad soo gasheen iyadoo aan ognahay inay tahay dufcaddii sagaalaad ee halkan ka qalin jabinaysa oo kuwii hore ee dufcadii koowaad iyo labaaduna yihiin ragga jaamacadaha macallimiinta lecturalka ka ah oo maantay magaalada inteeda badan kala wada hadday dhaqaatiir yihiin iyo hadday maaragtay macallimiin naqdeen waxaan leenahay dagaalka dheer soo gasheen waad ku mahadsantihiin waxaan ku hormari doonaa haddii ilaahay yidhaa iskoolka walaalayaal wixii aad qabateen waa wax lagu farxay waa wax guulaystay waa barnaamij guulaystay waa dal aad dhisteen waxaan leenahay intaad samayseen oo kale ayaannu kaga fadhinnaa inaad samaysaan haddii ilaahay yidhaahdo ood soo saartaan arday intaan ka badan kana tayo badan inta hore ood samayseenna waad ku mahadsantihiin waxaan dhihi lahay ardadaan rabaa inaan la dardaarmo ardada halkaan fadhida maanta soo dhammaysata dugsi sare waxaad joogtiin tilaabti koowaad ee tacliinta guriga markii la dhisi tago aasaasaa loo dhisaa waxaad joogtiin aasaaskii koowaad waxaa idiin dhiman dabaqii koowaad inaad dhistaan dabaqii labaad inaad dhistaan dabaqii saddexaad inaad dhistaan inaad maaragtay jaamacad heerka koowaad dhamaysiin inaad master ku dartaan inaad PhD ku dartaan waxaa idin horta alla hawl culus mid culus oo 12 sanana waad soo socoteen tan kalena waxaan filayaa intaa ka badan in kuma qaado doonto waxaan rabaa kula dardaarmaya inaad guntiga dhiisha isaga dhigtaan kana midha dhalisiin hadafkiin oodan halkaa uga harin waxaan rabaa in yar oo qiso ah inaan idiin sheego aniga laftirkay inaan faana ma rabo laakiin waxaan rabaa inaad ugu daysataan anigu markaan dugsi sare ka baxaayay waxaan ahay aabbe laba carruura leh oo aysan jirin qof oo gacan siinaysa ama maaragtay hawshiisa ku gacan saysa aysan jirin markaan dugsi sare ka baxaayay laba carruura ah balahaan ahay kadib waxaan sameeyey dugsi sare markaan ka baxay waxaan bartay lab technician markii aan ka qaatay bachelor degree shaybaar aan ka qaatay waxaan furay shaybaar dadkii degmadaasi deganay ay ka faa'iidaysteen muddo kadib markaan shaybaarka ku shaqeeyeen weli aabba ahay haddana waxaan diyaariyey general medicine and surgery oo waxaan soo dhigtay haddana jaamacad 6 sano ah anigoo weli aabba ah hadda oo la joogo waxaan jaamacadda wada dhigannaa labadii gabdhood laba da'ood oo ii joogeen markaan dugsi sare ka baxaayay oo midu laba carruura leedahay ayaan arday wada nahay waxaan dhigataa mar saddexaad baajkii saddexaad ayaan diyaariyaa oo ah humanity amase waxa loo yaqaano international law ayaan hadda shahaadadii saddexaad ku diyaariyaa ma jirin run ahaantii intaan dadaalkaa fulinaayey walaal iyo waalid dhinac taagan laakiin aniga ayaa isu xil saaray inaana heerkaas gaadho waxaan rabaa marka inaan tusaale kaga dhigo naftayda intaasaan idin soo tusay in ka badan waad gaari kartaa weliba waxaan dhihi lahaa waad iga nasiib badnaydeenoo waalid wax idin baraya walaal wax idin baraya oo garabka iska haya oo maxaad u baahan tahay xaggee maraysaa leh ayaa ilaahay idin siiyey waqtigiinna ka faa'iidaysta ha iska dhayicina insha allahu ugu dambeyn maamulaha guud ee dugsiyada iftiin primary secondary school ee magaalada muqdisho ustaad salaad maxamed maxamuud xalane oo khudbad dhinacyo kooban taabanaysa ka jeediyey goobta ayaa ardada ugu hambaliyeeyey isla markaasna ka hadlay ahmiyadda ay maanta gaareen intaas kadib waxaan rabaa haddii aan la idmo maanta waxaan joognaa xafladdii qalinjabinta ee 2018-2019 oo ay ku qalin jabinayaan 175 arday
175 arday wixii maqanna waynala qalin jabinayaan inta joogtana waa ayagaba joog waxaan leeyahay xafladaas waa astaan u gaar sanadkiiba marna dhacda oo iskuulada iftiin ay leeyihiin ha ka dhacdo meel kale ama ha ka dhacdo sidii sanadkii horeba ay halkan uga dhacday isla holkan Said Hotel dugsiyada iftiin waa dugsiyo fac weyn waa dugsiyo taariikhdoodu ay dheer tahay lagama sheekayn karo waxa ka soo baxay dad maanta mas'uuliyiin wadankan ka ama rag sarsaro xagga meheradaha iyo businesska ku sareeya ha noqdeen ama ha noqdeen dad kale oo bulshada maanta magac iyo muuqaal iyo sharaf wanaagsan ku leh waana runtii ku faanayna waa dadaal ay gaareen dugsiyada iftiin welina waxaan aaminsanahay halkii aan qorshaysanay inaan gaarin ilaa aan tagna meesha aan higsanayno ugu sarreysa oo dugsiyada iftiin ay noqdaan isha kaliya ee laga heli karo waxa ugu qoran halku dhigooda ah aqoontu waa iftiimiyaha aqoonta ilaa halka aan gaarno weli ma naan gaarin halkaan u socdo marka ilaa aan meesha gaarno waxaan doonaynaa inaan daalin inaan la isdhigan ardo iyo macallin iyo maamulba in garbaha la isqabsado taasaan doonaynaa taasaana lagu gaari karaa danta waa kuwan qaar ka mid ah ardaydii maanta qalin jabinaysay oo dareenkooda la wadaagay warbaahinta Ras Media magacaygu waa Maryam Boota Maxamuud kamid ah ardayda qalin jabinaysa dafcadda 9aad runaantii aad aan ugu faraxsanahay inaan ka qalin badashtay heerka dugsiga sare aan u bedelanayo heerka jaamacadeed runaantii waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa waalidiinteedii iyo macallimiintii heerkan isoo gaarsiiyay marka saddexaadna waxaan mahad iska leh Allah subhanahu wa ta'ala wallahi farxadeeda intaan kuma soo koobi karo dareenkaygana waa زايد مرك إن شاء الله ورجينا أنت نكفي عن النجار. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجيء وعلى عبد على أفريقيا. آدي أوفر حسنا مانتي إن كقل جبي سوق كتين معدك آدي أوفر حسنا أنا كم نوظف عدي السجالات إنسان كقل جبي نسو وحنجعل إنا أمهد عليو هو إذا معان هذا أحمد حسين يولي بأبه عبد علي هلي إن شاء الله وحنجعل إنا خبر شيء سوى هير وعنا أكجارو آدي أوفر حسنا أرض أمان إلى قل جبي سنة وحالها وما سنتين همبليو راس ميدنا وحالها سلوكله وما سنتين همبليو. أنا ما أنت آدي أوفر حسنا هاي هير كمان سوى جاري لما ما أنتوا أمهد علينا واردين تهذي معلمين تهذا إمام الكسكول كيجا. عثمان عبد الله محمد شبكة دورارك يا الراس مقدشو.